barnaamijkeennan waxaynu ku bilaabaynaa xisbullah oo ay u suura gashay inay nagta ka saarto oo ay burburiso mid ka mida hubka Israa'iil ay ku dhaarato difaaca hawada. haddaba maxaa dhacay saacadihii la soo dhaafay? maalmahan oo dhan waxaan ka sheekeynaynay sidaad ogtihiin diyaaradaha daroonka ee la yaabka leh ee ay la soo baxeen nimanka la yidhaha xisbullah. barnaamijyadeedu waa la socoteen. diyaaradahaas waxay hawada kaaga soo ridayaan gantaal, weliba gantaalkaasoo ah noocii loogu talagalay in garabka laga gano. waa baasuukaha ayaa cirka lagaaga keenaya. kaaga daran raadaarka inuu arka la rabay mararka qaar ma arki karo. waatay marka Iiraan baalki Israa'iil ku wareertay meel laga jiro iyo meel kale aqoways. xisbullah marka maxay sameeyeen? saacadihii la soo dhaafay aroornimadii saakay mid ka mida gantaalaha Israa'iil ay ku dhaarato oo la yiraahdo al-qubbatu al-hadiidiyya, ama waxaa la yiraahdaa gaashaankii birta ahaa la yiraahdaa. waxay ugu talagashay oo Israa'iil hawadeeda inay markaa u difaaco laba gantaal oo Israa'iil ay soo saarto oo mid Mareykanku uu la farsameeyo laakiin iyaga sheegta waa midkan oo la yiraahdo al-qubbatu al-hadiidiyya ama gaashaankii birta ahaa midkan la yiraahdo, iyo mid kale oo la yiraahdo miqlaac daa'uud la yiraahdaa. labadaas gantaal way ku dhaarataa, inkastoo waayadii dambe tabar badan aysan jirin oo gantaalihii Iiraan ay wax badan ka qaban waayeen, laakiin iyagu way aaminsan yihiin gantaalahaas. marka midkan wuxuu yaalay xisbullah gantaalaha ay soo ridayso iyo dhanka waqooyiga Israa'iil inuu difaaco ayaa loo dhiga halkaas. waa midkii ugu halista badnaa. xisbullah marka daroor ay usoo direen bas gantaalkana $2 milyan u joogaa, kanna loo soo dirayana $2,000 u joogaa. baasha loo soo diray daroonka inta kala soo wareegatay gadaal uga timid ayay jugta ka gelisay. khalaas dhaawac aanusan ka soo kaabsanayn ayay u geysataa la leeyahay. hadde marka maxaa yaala difaacii dhinaca waqooyiba haddii la burburiyey Israa'iil halkaa marka wax badan oo difaac badan marka ma jiro. marka sheekadii gudaha Israa'iil oo raaqasan xaleenaga xisbullah waa soo dhigteen ma waxay burburiyeen gantaalkeenii al-qubbatu al-hadiidiyya, gaashaankii birta ahaa oo aan dhiganay meesha. ma xisbullah burburis intaan la gaarin ba Iiraan. marka sheekadaas marka warbixin faahfaahsan waxaa goordhow ka qortay Al-Jazeera. waxay leedahay waxaa la dhaawacay oo la burburiyey mid ka mid ah gantaalaha oo la yiraahdo al-qubbatu al-hadiidiyya oo Israa'iil ay leedahay kadib markii ay duqaysay diyaarad ay soo rideen xisbullah. arrinkan waxaa xaqiijiyey oo sheegay idaacadda ciidanka Israa'iil oo soo xiganaysa mas-uuliyiin militariga ka tirsan oo sheegay in gantaalkoodii halista badnaa ee al-qubbatu al-hadiidiyya ay burburisay diyaarad ay soo rideen xisbullah. suu isaga difaaci waayey ayaa la taagan yahay. maxaa difaaca halka gantaal oo tuura imisa lacagu ku fadhiyaa isaga? baashaan ayada dhan wiifaysa hadee u badato waa $2,000-3,000 ku fadhidaa ayada dhan macalba gantaalkay wad adiga waa kaas meel u dhig. marka nimankii marka waxay yidhaahdeen haddiiba marka ay bilaabatay gantaalihii aynu hawada ku difaacayno isku ilaalinayna in xisbullah daroonis yar ay ku burburiyaan, Netanyahu waa xanaaq. Netanyahu furkoo tuuray. sidee ku dhici kartaa maxaa la yidhaha? waaba dhacday jugteena laga soo geliyaa la yidhi allaysuki maadoo yidhi. marka duhurka maanta marka wuxuu isugu yeeray dhammaan madaxda amniga oo dhan iyo wixii oo dhan shir amniyaan qabanaa yidhi.
khataraaba ku jirnaa uu yidhi khatarada ku jirnaa aday ku taallaa la leeyahay haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyey wargeyska la yidhaahdo Yaddacod Ahronoth ee ka soo baxa Israa'iil ayaa wuxuu qorayaa Netanyahu wuxuu qaban doonaa kulan amni oo duhurka maanta uu qaban doono kulankaas marka ra'iisul wasaaraha waxa looga arinsan doonaa arimihii ugu dambeeyay ee soo kordhay iyo xaaladda Iran iyo Washington wada hadaladooda iyo arinta Israa'iil laftirkeeda gudaheeda iyo waxa ka taagan macnaha xaaladii ugu dambeeyay ee soo kordhay waayaale marka sheekadaas uu saakay Israa'iil waajaha wareersan tahay hebel nik awda laga dhigo maqli jirtay maskaxda halkaas afeer looga dhufto dhulku la dhacay ma soo kicin maqli jirtay nimankii saaka xisbullah nimankan gantaalkii ay isku difaacayeen inta qabteen ay feer la dhigeen marka saaki marka odayaashii meel laga jiray aqoolaayeen maskaxdii wareertay marka waa wareereen marka khalkhalkaas ka jira leeyahay gudaha Israa'iil waaye qodobka marka muhiimka halkaas ay kaga gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah barnaamijka shalay galinkii dambe Iran waatay Pakistan u dhiibtay warqad waataan isloogay waxa suuynaa nari Trump soo uga soo jawaabo laakiin waxa kale oo sheegay halkan idinkaga sheegay la taliyaha Ayatullaahiga inuu war ka soo daba tuuray warqadda taasoo marka aanu ku macnaynay in wax Mareykanku anfacaya isoo ku qorneen warqadda loo dhiibay Pakistan ee la yiri wada hadallada ku saabsan jawaabtii Hindisiin waalid marka saacadii la soo dhaafay ninkii Trump marka warqadii wuxuu yiri waxna anfaca baba ku qornooyay warqadan haddaba marka aanu tuso wararkii ugu dambeeyay Trump wuxuu diiday jawaabtii Iran ka timid laakiin Iran waxay leedahay qorshaha Mareykanka iyo dalabka uu rabay wax macquul ma ah oo macnaha wax dhici karo ma ahano ilaadina غير macquul waayeen ninka waxa uu naga sugay jawaab wax غير macquul waayeen marka annaguna wax غير macquul u qorneen fahamta odaga marka waa wareer go'aan marka adoo ku yaalaali marka waxyaabaha la yaab kale marka waxa waaye waxay yiraahdeen waxaan ka wada hadlaynaa arimahan maartay lacagaha naga xaniban cunaqabataynta lagu hayo waxa soo dhan meelihiina la ka burburiyay magdhowgoodii waa alaab kala la aaday duqina muxuu rabay uraniumka waa baabi'inaynaa ama waa qaadaynaa wadan heblaayaan geenaynaa ama meeshaas walwalka ka qabto nuclearka waxaan waa saaraynaa kan alaabtaas alaab marka wadadaas oo dhan ma la aadin wada kala la aado leeyri inta soo saraac cunaqabateen ugu haysay cunaqabataynti waa inaan laga qaadaa lacagaheena dibadaha ku xanibanna waa inaan gacanta noogu soo shubtaa maadaama iska lacagaheena nasi aritaan Hormuzna waa ka xaajoonaynaayo Hormuz tii hore ogeyd ma meesha waa la qabsaday marka qaabkii loo mari lahaa iyo canshuurta ma laga dhimayaa iyo sidee la yeelayaa iyo maraakiibta sidee ula macaamilaysan waxa ka wada hadlaynaa maana Hormuz la fasaxayo nin walba iska laafiyoonayo maray ma jirto odaygu waaga ku bariyay markaasuu wuxuu yiri waxa ay soo direen waxa la aqbali karo ma haday ku taalaan la aqbali karin iyo hadii la aqbali karaba adiga waaya liiradeen oo annaga taas hanoola imaanaalay qodobka marka isaguna halkaas ay ka gudbaynaa wararka soo kordho kamid yahay warka kale ee cusub barnaamijkeena aynu ku soo qaadanayno ugu horeeya maanta isniina wuxuu yahay shalay Iran waatay tiri Faransiis iyo Ingiriis maraakiibtooda meelaha taagan oo Hormuz aan ka shaqaynaynaa leh waa u digaynaa ilaahay nagta ka saarayna hadii ay dhaqdhaqaaq isku day sameeyaan Hormuz inay u soo dhawaadaan Faransiis iyo Ingiriis marka wasiiradooda gaashaandhigga iyo 40 wadan wasiiradooda gaashaandhigga ayaa barito talaada kulmaya qorshay marka wadaanay leeyihiin meeshan dana badana nooga xiran shidaalkii gaaskii adduunka oo dhan Iran xanibtay marka farsamo aynu ku soo gudbino aqli aan keenno
caqliga marka ay wadaan waa lagu wareeray marka warbaahinta waxay leedahay ingiriis iyo faransiis caqliga ay keeni karaan muxuu dagaal ma rabnay leeyihiin si farsamaysan maraakiibta ku soo gudbinayna ee dagaal iyo farsamada odaga laga diiday macalinka weyn barnaamijkaas uu fadhiya asagiya soo marila ee adinka soo maraysa Iiraan waatan hanjabaysa marka lama yaqaan marka aragno kulay wixii ka soo baxa hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa wargeeska leeyahay Sharqul Awsad wuxuu leeyahay Britaniya iyo Faransa waxay hogaamin doonaan shir talaadada dhex mari doona wasiirada gaashaandhigga ilaa 40 dawladood iyadoo looga arisanayo arimaha Hormuz marka waa kaas ugu horeeya maanta Isniin aan idin soo gudbinayn hadaba qaybtan waxaanu ku soo qaadanaa intaynu barnaamijka ku jirnay wixii warara ee soo dhacay ayaynu idinkugu soo gudbinaa hadaba waxa soo dhacay war muhiim ah ciidanka Israa'iil ayaa goordhow war soo saaray waxay leeyihiin diyaarad helicopter oo ciidanku leeyahay oo dhaawac ka soo qaadaysa koonfurta Lebanon ayaa cilad farsamo aawadeed waxay u degtay koonfurta Lebanon dhaawacii ay waday iyagu halkaas ay isla degeen dhanka kale Xisbullah waxay leeyihiin rasaas ayaanu ku ridnay diyaarad helicopter oo dhaawacyo qaadaysa askartoodii Xisbullah ayaa goordhow isku dhacay askartii qayb kamid ah nagta laga saaray diyaarada helicopter timid dhaawacii qaaday maagtay xabada ku ridnay marka iyagu ma xaqiijinayaan Xisbullah rasaastii iyo wixii ay ku rideen helicopterku inay saameysay in kale laakiin ciidanka Israa'iil waray hadda soo saaray waxay leeyihiin waa cilad farsamo ayay u soo qaadi weysay ciidankii markii ay qaaday cilad farsamo ku timid halkaasi ku degtay oo marka koonfurta Lebanon ayay ku degtay cilad farsamo darteed marka koonfurta Lebanon joogta la isku haya meeshaas nimanka Xisbullah leeyahay wagi Israa'iil way yaabta Xisbullah nooc kala noqotay marka hawshaas halkaas ay maraysa wararkaas ayaa ugu waaweyn hadii alla idmo wixii kale akhbaarada ee soo dhaca barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno meel kasto aad joogtaan asxaabay